Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan kanaalka ayaan socod waxaan idinka raali gelinayaa muddadii dheerayd aynu kala maqnayn iyagoo ay jireen sababo badan oo ardaynimo iyo qaar kaleba haddase waxaynu si toosa u bilaaban doonnaa barnaamijyadeennii oo si taxana ah inoogu socon doonaa kuna soo dhowaada barnaamijkeenna maanta waan hubaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto barnaamijkan asxaabta waxaan idinka codsanayaa oonu weli idinka codsan barnaamijkan haddii uu ku soo gaadho fadlan gaadhsii asxaabtaada kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan sababtoo ah nebigu waxa uu yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam qofkii khayr tusiya qof kale waxa uu la mid yahay sidii isagoo sameeyey oo kale barnaamijkeenna maanta ciwaankiisu waxa uu yahay xaqaa'iqda nolosha ee qadhaadh kuwaasoo aynu u baahannahay inaynu ictiraafno ama si dhaba aynu u rumayno haddii aynu soo qaadanno xaqiiqada koowaad waa garowshiyaha xaqiiqada geerida qof kasta oo arladan ku nooli waxa uu ka cabbi doonaa darkaas geerida awowyaasheen iyo dadkii ka horreeyeyba xaqiiqadaasi waa ay dhaadeen sidaa awgeed waxaa lagama maarmaana inaynu isu diyaarinno maalinka iyo saacadda ay kugu timaado geeridu kuma taqaano cidaan alla ka ahayni sidoo kale dadka aad jeceshahay ayaa uu mawdku haleeli doonaa oo uu kaa qaadi doonaa sidaa awgeed waa inaad rumayso oo aad si dhaba u ictiqaaddo qadartaasi arrintaasina waxay noo caddaynaysaa gabaygii uu tiriyey ismaaciil binu qaasim oo noolaa wakhtigii jaahiliyadda naanaystusna ay ahayd ama lagu magacaabi jiray abulcataahiya waxa uu dhashay sannadkii kii miilaadiga ama 130kii hijriga waxaanu dhintay 826kii miilaadiga ama 213kii hijriga waxaana gabaygiisa ka mid ahaa sayasiiru lmar'u jasadan maa fiihi ruuxun bayna caynay kulli xayin calamu lmowti yaluuxu latamuutanna wain cummirta maa cummira nuuxu abulcataahiya waxa uu ina leeyahay maalin ayaa uu qofku ahaan doonaa jidh bilaa ruuxa ama bilaa naf ah mid kasta oo nool labadiisa indhood waxaa ka babbanaya calanka geerida waxa uu ina leeyahay waad dhiman doontaa haddii xataa lagu siiyo cumrigii nebi nuux oo kale haddii aynu u nimaadno xaqiiqada kale ee loo baahan yahay inaynu garowshiyaheeda yeelanno ama aynu si dhaba u rumayno waa sunnada isbeddelka marka aynu leenahay ama sunnatu taqyiir ogsoonow inaanad ahaanayn sida aad hadda tahay xaaladuhu waa isbeddeli doonaan ha ahaato ama ha isku beddesho sida xun ama sida wanaagsane adii keliyata waxa kula gudboon inaad ku dadaasho sidii aad noloshaada u wanaajin lahayd xaqiiqada saddexaad waxa ay tahay noloshu maaha mid cadaalad falaysa laakiin siima ahaan doonto mararka qaar waxaad eegaysaa hareerahaaga waxaanad isweydiinaysaa maxaa lagugu imtixaanay xanuunkan maxaa ay dadkaasi u yihiin kuwo xoolo badan haysta oo aqniyo ah aniguna aan nolol maalmeedkayga ugu dhibtoodaa sidii aan ku heli lahaa su-aalahaasi waxay ku soo noqnoqdaan maskaxda kuwo badan oo inaga mid ah laakiin waxaa jirta hal xaqiiqo oo ah noloshu waa imtixaan noloshu maaha mid cadaalad falaysa laakiin alle waa mid cadaalad badan cadaaladdiisana waxa uu u gaar yeelay maalin la yidhaahdo yowmulxisaab xaqiiqada afraad waxa ay tahay kalsoonida xaddhaafka ahi waxa ay kuu horseedaa halaag aad ku hoobato waxaa lagama maarmaana inaynu kalsoonideenna xad u yeelno si aanaynu uga faa'iidaystan kuwa caadaystay inay qalbiyada ka jebiyaan kuwa daacadda u ah dadka qaar maaha inaynu kalsoonni siinno si aanad ugu dambayn shallayto iyo nadam sheeko kasta oo ku saabsan khiyaamo weyn waxa ay ka timaaday kalsooni badan xaqiiqada shanaadna waxay tahay maanta ayaa muhiima waxa ay ka mid tahay xaqiiqooyinka muhiimka ah taasoo aanay awoodin inay fahmaan in badan oo dadka ka mid ahi tagtadu nolosha qofka bani'aadamka ah meel kuma laha timaadaduna waa shay aan la aqoon sida uu noqon doono sidaa awgeed muhiimadda ugu weyn waa inaynu siino wakhtiga hadda la joogo ha ka warwarin mustaqbalka hana ka tiiraanyoon wixii tegey waayo waxa ay kaa mashquulinayaan wakhtigan aad hadda aad wax qabsan lahayde wassalaamu calaykum